hay-adda IOM oo tababar muddo 10 cisho ah socday u soo xidhay qaar ka mid ah ardayda ka qalin jabisay jaamacadaha Timacadde University iyo Camuud kaasi oo ujeedadiisu ahayd sidii shaqo loogu abuuri lahaa ardaydaasi xafladda xidhitaanka tababarka oo ka dhacday xarunta jaamacadda Timacadde University ayaa waxa ka soo qayb galay barasaabka gobolka Gabiley Mustafa Cabdi Ciise Shiine xildhibaano ka tirsan golaha deegaanka Gabiley istuduwayaasha wasaaradaha kala duwan ee gobolka Gabiley iyo marti sharaf kale waxaana ugu horeyn munaasabadani ka hadlay Liibaan Maxamuud Ciise oo ah sarkaal ka tirsan hay-adda IOM isla markaasina faahfaahin ka bixiyay ujeedada tababarkani barasaabka gobolka Gabiley Mustafa Cabdi Ciise Shiine gudoomiyaha jaamacadda Timacadde Dr. Magan xildhibaano ka tirsan golaha deegaanka Gabiley ku saabsan xafladan quruxda badan ee hay'adda IOM ay noo soo abaabushay waxaan marka hore mahadnaq u soo jeedinayaa hay'adda IOM barnaamijka shaqo abuurka ee sanadlaha ah ee ay jaamacadaha dalka ay ka hirgeliyaan waa barnaamij معنيه أنا أركون برنامج مهم يهاي أرضي ديري جرينيا جامعة ديري جرينيا مضمن إلى عمانو وحن شعلا هاي إن أن كل يتو أرضي ده حدا طبعا جامعة ده عمود يتيم عده برنامج كذا ما يستوي وحن شعلا هاي إن كل يدي ورق ليو أرضي سنة كيو هره Timacadde kale ardayda sanadkii hore barnaamijka ka qayb gashay waxaan filayaa laba arday uun baa shaqeeyay intii kale way shaqeeyaan marka waxaad arkaysaa inuu barnaamijkan barnaamij meedhal yahay insha Allah dhamaantiina sida aad imka hawsha u gasheen ayaad insha Allah ku shaqo gali doontaan mashruucan runtii waa mashruuc wanaagsan oo keenaya abuuray integration in ummadda bulshada is dhex gasho إن كان يقول هالكم بالحرية وحنبودي سياسيين تون حاجة حرانة لكن ولا ضد كونهم حاجة سعر لانية وحنرجعنا إن مشاريع إنت كبل عرنا وضد كسر حجران مفردينه أينو أبورة إن شاء الله كل ما نجي جامعة Timacadde وحنبودنا مشروع بكو تعرف سابسون دورين عبد جامعة عمود يكون